بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxay ku beegan tahay 5 January sanadka 2026 waxaan xusaynaa sanad guuradii 62aad tan iyo markii la aasaasay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona oo ah isha wararka Soomaaliya oo ay caalamka kala socdaan dhacdooyinka dalka ka dhacaya shacabka Soomaaliyeedna lagu gaarsiiyo warbaahinada kala duwan ee dowladda federaalka iyo ummadda Soomaaliyeed ba loogu talagalay. wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona waxay leedahay taariikh dheer oo ah howlwadeeno si hufan uga soo baxa shaqooyinkooda waajibaadkooda saaran oo ay ugu adeegayaan shacabka Soomaaliyeed caalamkana ay ku xirayaan Soomaaliya. intii ay shaqaynayso wakaaladdu waxay muujisay karti firfircooni waxqabad muuqda oo laga dheehan karo sida shacabka Soomaaliyeed ee wararka u helaan idaacadaha caalamkana marka ay doonayaan inay Soomaaliya warar ka soo xigtaan wakaaladdu ay tahay isha ugu weyn ee wararka Soomaaliya lagala socdo. wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona waxaan ugu hambalyeynayaa inay ku xiran yihiin in ka badan 70 wakaalado warar caalami ah oo isugu jira telefishinno, jaraa'id, raadiyo iyo warbaahinno kala duwan oo inta badan wararka Soomaaliya markay dhacaan isha ugu horeysa ee ay soo eegaan ay tahay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona. howlwadeennada oo isugu jira tifaftirayaasha, wariyeyaasha, farsamayaqaanada iyo dhammaanba inta kaalinta ka qaadata howlaha ka socda wakaaladda Sona waxaan leeyahay hambalyo. sanad guuradan 62aad ee wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona lagu xusayo aasaaskeeda. wakaaladdu waxay samaysay horumar ballaaran sanooyinkii la soo dhaafay. haatanna waxay ka mid tahay wakaaladaha caalamka ugu caansan ee xagga tiknolojiyadda iyo casriyeynta qalabka warbaahintaba caamka ay ku yihiin. waxaan u rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa kale inay ku gaaraan nabad baraare islamarkaana halkaa kasii wadaan waajibaadka qaran ee ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed iyo inay caalamka ku wargeliyaan dhacdooyinka amaba xaaladaha Soomaaliya ka jira. wakaaladdu waxay kaloo ay door weyn ku leedahay istiraatiijiyadda dowlad dhiska Soomaaliya. waxay qayb weyn ka qaadataa barnaamijka ugu muhiimsan dowladda ah dhinaca amniga, dagaalada looga soo horjeedo khawaariijta, dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya oo ay ka mid yihiin arrimaha dib u heshiisiinta, siyaasadda, doorashooyinkii dowladaha hoose dhowaan qabsoomay iyo mustaqbalka Soomaaliya ee dib u dhiskeeda la xiriira sida arrimaha dhaqaalaha, arrimaha bulshada, dib u heshiisiinta iyo weliba in bulshada laga wacyigeliyo waxyaabaha aan danta u ahayn. waxayna diiradda saartaa inay dhalinyarada Soomaaliyeed u gudbiso waxyaabaha ama fikradaha ay isleeyihiin waa ay kusii horumarin karaan qarankooda. hambalyo ayaan leenahay mar kale wakaaladda wararka Soomaaliyeed.